magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxay waayii hore caan ku ahayd beeraha iyo wax soo saarka balse sanadihii u dambeeyay waxay noqotay xudunta dhibaatooyinka bini'aadanimo ee Soomaaliya ka jira abaaro daba dheeraaday iyo amni darro ayaa kumanaan qof ku qasbay inay ku noolaadaan xerooyinka barakacayaasha balse waxaa jirta rajo iftiimaysa wax badan ka bedelaysa nolosha qaar ka mid ah dadka ku nool Baydhabo hay-adda SOS ayaa waxay soo bandhigtay mashruuc cusub oo dhinaca beeraha ah oo loo adeegsanaya farsamo cusub oo loo yaqaan hydroponic waa hab lagu beero dalagga iyadoo aan la isticmaalinin carro dhirta la beeraya ayaa laga soo laalaadinaya tuubooyin siinaya biyo nafaqo si ay u koraan Soomaali lagu obaaday ayaana badan udar badan maadaama wadanka oo meelaha walbadan dhibaato isku mari marka intaas oo fiiriyana mayba fadnay ama suubin ama ka targalnay inuu hirgelina wadanka ku hirgelina walanka soo smart farming ama hydroponic ku horta bandoornay ma baahanyaa biyo yar iyo baahan tan lamada baahanyaa nafaqo oo zaid ma baahan tofauti kunayo kubwa kwa ukulima huu wa hydroponics sababu tunatumia portion 2 kidogo na tunapata mazao mingi kuliko ile traditional farming yenye tulikuwa tunafanya hapo mbeleni so that we can use like half an acre and we can get mazao mengi kama ya eka mzima na pia inasaidia sana kwa kucontrol pest na magonjwa ya mchanga. Habkan cusub waxa uu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin inaan u baahnayn biyo badan iyo inay aad u sareyso wax soo saarkiisa. Tusaale ahaan habkani waxa uu isticmaalaa ilaa 90% biyo ka yar marka loo eego habka caadiga ah ee wax beerashada. Waana arrin waxtar weyn u leh gobolkan oo ay aad u saameeyeen biyo yari iyo abaaro soo noqnoqday. Aan ku guridayo gana asaga anjeysada yaanya ku bilaawata koosta ansalaata ana asaga anjeysada ku godgadada arday ma sha Allah ka tan nololay aan ka faylata iyaalka walbarasho ka jaraan walbarashada ka dhiibide iyaalka ku dhargadada irsaagdan yow هذا ورك نحنا سجابنا أنا نيجي زايدي أو هرنا نيجي دريري أم باهنا أنا شغال ذي ها بقول كيف بقول إثبات الدرا ما هاي سبب تو أن مدي والأبورنا ولا ين أبورنا روب السجاي حتى روب السجاي نهوب بجيك ميل أبورنا بيون هلو هاين normal mod ko baad hanin baa hayaan waqtigii unhanas bahitaan iyo sugaani bahanga koringanin ka jaran marka boqolkiiba boqol ida ya tii hor itan insha duunin tan aid faa'iidan ku dareemahayn Soomaaliya oo lagu qiyaasay heerka faqriga oo maraya 73% halka tirada dadka daadoodu ay ka hooseyso 30 sano lagu qiyaasay inay u dhigmaan 70% ayaa hay'adda SOS waxay awood u siinaysaa bulshada deegaanka gaar ahaan dhalinyarada sidii wax ku soo saaran lahaayeen iyo tababar ay uga faa'iideysanayeen habkan cusub ee wax beerashada tallaabadani waxay kubcinaysaa isla markaana xirfad wax ku oolaasaynaysaa daayirta waxaana si toos ah uga faa'iideysanaya ugu yaraan 300 oo dhalinyaro ah iyadoo la filayay inay ka macaashaan ku dhawaad 500 oo qoys ama 3,000 oo qof cilmi baaris barbardhig oo ay samaysay jaamacadda Zamzam ee Baydhabo ayaa muujinaysa natiijooyin wax ku ool ah oo laga helay qaabkan cusub ee wax beerashada marka la barbar dhigo habkii soo jireenka ah ee dhulka wax lagu beero dadka deegaanka ayaa si diiran u soo dhaweeyay hindisahani dalagyada ka soo go'ay habkani hydroponic ayaa waxa lagu iibinayaa dukaamada waaweyn ee magaalada Baydhabo taasoo abuuraysa fursado shaqo bay qarashkii ka horta markii Muqdisho meelaas ku sheenay ka horta qarash meelaadanta amal 1.5 mise 1.8 kiin dhaw meelasay lamdor amal kiin koya hadan qarash kale oo hadan transport ay ka gale ما كوتي قيمة أو زايدة كوي ده كم عميل كأنا جذوش دبك هاي هذا مركب ما دام وسديجان كي كباهي قيمة معقولة أنا ككوي مع عميل كنا كنا عسين ما سفيلنا إن شاء الله صعود كفايدي سيجا كانوا عصب وحي تسالوا وناكسن وتهاي واتكي سيجا حالتها بين آدم ما يدتك كونوا البيدبو هي أود ده حال أبورنيمو